السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada xogaha wararkii ugu dambeeyay guud ahaan geeyiga Soomaaliya qodobada aan idin soo gudbin doona hadii Allah uu dalo uu saamaxo waxa qayb ka noqon doona dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay barnaamijka keentay in dawladda Taywan ay ciidamo u tababartay maamulka Somaliland kuwaas oo xataa ka qayb qaatay dagaalo dhowr oo ka dhacay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan idin soo gudbin doonaa war la yaab leh oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya sidoo kale qodobada kale aad barnaamijkeena kaga bogan doontaan hadii Allah uu dalo uu saamaxo waxa qayb ka noqon doona dagaalkii ka dhacay deegaanada ka tirsan shabeellada dhexe oo la sheegay in hadda la arkay tiro meedad ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo dadsan deegaano ay ka mid tahay ama deegaano uu ka mid yahay magaalada muqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan tiro ka badan 5 sargaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo meedadkooda maanta la helay ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijkeena kaga bogan doontaan hadii Allah uu dalo uu saamaxo xogaha wararkii ugu dambeeyay duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose iyo ciidanka difaaca SSC Khaatumo oo heegan ka galay maanta aaga tuulada Yeyle qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kordha ayaa saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii kugu horeysay nagu soo biir oo subscribe channelkan muuqaalka daawada si la gare aragtaadna qaybta comment-ga inoogu reeb qodobka ugu horeeya aan ku bilaabo dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay barnaamijka keentay in dawladda Taywan ay ciidamo u tababartay Somaliland kuwaas oo ka qayb qaatay dagaalo dhowr oo ka dhacay gobolada Sool iyo Sanaag wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya ahna wasiirka cusub ee gaashaandhigga dawladda Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay madal ka dhacday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu barnaamijka keenay sababta keentay in dawladda Soomaaliya ay kansasho in baasaboorka Taywan lagu yimaado meel ka mid ah Soomaaliya أحمد معلي فقي وزيرك هوري أريمها ديبادة الصومالية وحو مركي ugu horeysay banaanka keenay hadal ay muddo qarinaysay dawladda Soomaaliya kaasi oo ahaa in Taywan ay ciidamo u tababartay Somaliland ciidankaas waxa la sheegay qaar inay hadda ku sugan yihiin gudaha Taywan qaarna la sheegay inay xataa ka dagaalameen godka Gooja Cade iyo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ciidamadii SSC Khaatumo dagaalka la galay 2022 ilaa 2023 ayaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen ciidamo ay tababartay dawladda Taywan kuwaas oo la sheegay inay qabaan tababarkii ugu dambeeyay Ahmed Macalin Fiqi wuxuu wasa ka xareeqay in dawladda Soomaaliya dulqaad ay u yeelatay in ay si weyn oo la socoto dhaqdhaqaaqa Taywan isagoo sheegay in xataa dawladda Shiinaha ay ku dacweeyeen Shiinuhuna uu sheegay in Taywan ay ka mid tahay maamul isaga hoos yimaada isla markaana aan lahayn tababar iyo tayo ay ciidankooda ku tababaraan kuwa Somaliland xaajadu markay halka joogto waxa la sheegay in ciidanka Taywan aysan ka qayb qaadan wax dagaal ah balse saraakiil iyo saraakiil ku xigeenno khibrad leh oo dhanka militariga ah waxa la sheegay inay ka qayb qaateen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay meel ka mid ah gobolka Sool sida wararku tilmaamayaan xogaha iyo macluumaadka aan helayna waxay tilmaamayaan in dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay sidaas si lamid ah dawladda Taywan la sheegay in ay damacday inay farageliso arrimaha gudaha Somaliland laakiin dawladda Soomaaliya istorista ku sameysay caasimada Taywan diyaarad ka soo baxday oo ku degtay Nairobi kadibna toos Muqdisho rabtay inay u soo marto ayaa la celiyay sidaas si lamid ah waxa la celiyay laba duulimaad oo tagi lahaa magaalada Hargeysa kuwaas oo dhammaan ka yimid wadanka Taywan wasiirka arrimaha dibadda Taywan ayaa isla tagi lahaa Somaliland laakiinse waxa loo diiday dalku galka dalkeena gaar ahaan baasaboorka Soomaaliga ah maadaama Taywan hadda wixii ka dambeeyay aysan qayb ka noqon doonin wadamada loo ogol yahay dadkooda inay soo farageliyaan ama ay qayb ka noqdaan gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa ay wadaan xubno ay ka mid yihiin dawladda Taywan iyo sidoo kale dawladda Carbeed kuwaas oo dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay xilligan u tafaxaydanayaan sidii ay u minjaxaabin lahaayeen midnimada Soomaaliya isla wararka Somaliland intaana ka dhex bixin barqanimadii maanta laba gantaal oo aad u culus ayaa dhawaqooda waxa laga maqlay gudaha saldhiga ciidan oo ku yaala magaalada Og wararku waxay tilmaamayaan in saldhigaasi lagu tijaabiyay hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha doorriga u dhaca saraakiil aan la hadalnay waxay sheegeen in hubkan ay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay oo markaasi dawladda Somaliland ay ka soo gadatay meel ka mid ah wadanka Ethiopia waxa la sheegay inay xoog xeelad iyo juhdi iyo dhaqaalaha ku bixinayaan si loo soo gabagabeyn lahaa joogitaankooda waxaana la sheegay in sidaas lamida dawladda Ethiopia 2024 ilaa 2025 ay Somaliland ka gaday mid ka mid ah qoryaha caanka ka ah gudaha wadanka Ethiopia ruushkan uu farsameeyay
dowladda Soomaaliya waxaa la sheegay inay si dhow ula socoto hubka tirabeelka ah oo dowladda Itoobiya ay ku daabulayso saldhiga magaalada Og cod laga sii daayay warbaahinta gudaha Somaliland ayaa la sheegay inuu ahaa General Burhan Juma taliyaha ciidanka militariga Itoobiya oo sheegaya in ay hub ka gadi doonaan Somaliland haddii ay dhaqaale u soo bandhigto maxaa diidaya buu yiri inaan hub ka gadno dowladda inaan hub ka gadno Somaliland haddii ay dhaqaalana siinayaan oo quwadaha adduunka hubka ay kala gataan goormu dambi noqday hadalkan oo markaas u muuqda inuu yahay mid dab ku sii shidaya xiisadii ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Itoobiya Somaliland hubka ay maanta ku tijaabisay gudaha magaalada Og waxaa la aaminsan yahay inuu yahay mid kamid ah hubabka ugu casrisan ee taariikhda oo Somaliland ay gacanta ku hayso waxaa la sheegay in hubkan lidadkiisu ay gaarayaan masaafo ka badan 90 kiiloomitir iyo googo waxaa la sheegay in hubkan sidaas la mid ah Somaliland ay soo gadatay tirsiga taariikhda markay ahayd 24 bishii koobaad ilaa sanadkan dhaxbartanka ah ee 2025 bishii saddexaad dhammaan waxaa la sheegay hubkaas in laga keenay dhinaca Itoobiya oo berbera lagaga soo dejiya markab kadibna berbera laga soo qaaday Hargeysa la keenay Hargeysa ilaa iyo Ogna saas si lamida lagu soo gaarsiiyay insha Allah daawadayaal wixii ku soo kordha wararka ku saabsan qoryaha daroodoriga u dhacay ee maanta lagu tijaabiyay gudaha magaalada Og waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe haddii Allah uu saamaxo markaana koonfurta Soomaaliya maydad ka badan ku dhawaad 40 xubnood oo al-shabaab ah ayaa maanta waxaa laga helay magaalada muqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay ka carareen maydadka maanta laga helay magaalada muqokori iyo deegaanada hoos yimaada macawslada beesha xawaada shalay waxay dhigeen mid kamid ah casharooyinka ugu la yaabka badnaa kadib markii ay soo gabagabeeyeen al-shabaabkii halka ku sugnaa xogaha iyo macluumaadku waxay tilmaamayaan in 48 saac ee la soo dhaafay sidaas si lamid ah la helay meedadka 4 sargaal oo si weyn looga yaqaanay gobolka Hiiraan kuwaas oo xataa ka qayb qaatay dagaalo dhowr oo ka dhacay meelo kamid ah gobolka Hiiraan ila waraadiyo waxay tilmaameen in dowladda Soomaaliya ay duqeymo xoogan ka fulisay meelo kamid ah gobolka Hiiraan taas u sahashay in la laayo xubno far badan oo al-shabaab ah kuwaas oo maanta meedadkooda laga helay muqokori iyo deegaanada hoos yimaada cashiradii ay dhigeen ciidamadii macawsleyda ee ku sugnaa wargaadhi ciidamadii macawsleyda ee ku sugnaa muqokori iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ifafaal cad waxa uu ka bixiyay siday al-shabaab u daciifeen ciidanka macawsleydu hadda ay diyaar u yihiin inay weeqaan awoodda kooxda al-shabaab haddii ay isku dayaan inay weeraro soo qaadaan saraakiisha la hadalay hadalkooda waxa inta ku dareen inay baarayaan xogta macluumaad kale oo sheegaya in la dilay sargaal ku xigeen waxa Yuusuf kaba ku tukada ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe kaas oo la sheegay in islaftirkiisu qayb uu ka ahaa dagaalo dhowr ah oo ka dhacay meelo kamid ah gobolka Hiiraan muqokori wixii ka dhacay waxay ahaayeen 10 aan marna la ilaawi doonin oo dowladda Soomaaliya waxay dhigtay in taariikh ah la duqeyn karo la beegsan karo sirdoonkoodun uu yahay mid sax ah ayuu yiri mid kamid ah falanqeeyaasha arrimaha amniga oo ka hadlayay xasuuqii al-shabaab loogu geystay magaalada muqokori ee gobolka Hiiraan beesha xawaadlo waxay ka mid ahayd beelihii ugu horeeyay ee dagaalka la galay kooxda al-shabaab 2020 waxaana sidaas si lamid ah kooxda al-shabaab lagaga saaray muqokori iyo deegaanada hoos yimaada xabada ka baxaysa qoriga AK47 ah maadaama ciidamadii ugu dambeeyay ee la dagaalamay kooxda al-shabaab intooda badan ay ahaayeen ciidamo qabaa'il ah oo dowladdan hoos yimaan kuwaas oo la aaminsan yahay in laftirkoodu ay qayb ka ahaayeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay meelo kamid ah gobolka Hiiraan falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in sidaas si lamid ah casharada loo dhigay kooxda al-shabaab ay ahaayeen kuwa aysan ka soo kabsan doonin dhinacaasi gobolka Jubbada Hoose ugu dambeyntiina wararka laga helay waxay tilmaamayaan dhowrkii saacadood la soo dhaafay duqeymo xoogan laga fuliyay meelo kamid ah gobolka Jubbada Hoose kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in lagu duqeeyay duleedka magaalada Kismaayo xilli ay doonayeen inay weeraraan saldhig ciidan oo ku yaala Cabdalla Biroole deegaanka Cabdalla Biroole 48 saac la soo dhaafay al-shabaab culeys xoog leh ayay soo saareen laakiin waxa loo dhigay maalinta ka dambaysa 10 lama ilaawaan ah labadii maalin ee la soo dhaafay waxaan idin sheegay in duqeymo xoog leh oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose lagu leeyahay xubno saraakiil ah kuwaas oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab duqeymaha la kulmayaan hadda waa kuwa arxan darro ah oo iyaguba sidaas oo kale ayaan dibacda ugu kuleen doonaa ayuu yiri afhayeenka wasaaradda amniga maamulka Jubbaland oo warbaahinta la hadlay afhayeenku wuxuu hadalkiisa inta ku daray inay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kala ah
jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxay noqdeen xudunta laga duqeeyo kooxda al-shabaab waxaana jubbada dhexe ay ka mid ahayd meelihii ugu darnaa oo kooxda lagaga laayay saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenno gudahaana saaxiibayaal intaas ayuu ku dhan yahay wararkeennii haddii ay tahay markii kuugu horreysay nagu soo biir oo subscribe channelkan muuqaalkan aad daaweynaysiina sii leegare mahadsanidin